maalmaha ka mid ah afar tuug ayaa ogaaday inuu jiro mid ka mid ah dadka tuulada deganaa oo doonaya inuu iibiyo wan uu lahaa. waxaanay tageen afartii tuug wadada tagta suuqa. mid ka mid ah tuugtii waxa uu fadhiistay bilowga wadada, midna waxa uu fadhiistay meel ka yar durugsan, kii saddexaadna waxa uu fadhiistay kala badhkii, kii afraadna kala badhka marka waxoogaa la dhaafa ayuu fadhiistay. in yar kadibna waxa soo maray ninkii oo wankii wata. waxaanu arkay tuuggii koowaad, kaasoo ku idhi, maxaad u jiidanaysaa eyga? ninkii ayaa ku jawaabay, wan ayaan wataa ee xaggeed eyga ka keentay? waanu iska dhaafay. in yar markuu socday ninkii waxa uu soo maray tuuggii labaad, kaasoo ku idhi, maxaad eyga qoorta uga xidhay? wuu yaabay ninkii, waxaanu ku jawaabay, waa wan ee ey maaha, waan ku dhaaranayaa inuu wan yahay. waanu iska sii socday. wax yar kadib waxa uu soo maray tuuggii saddexaad, kaasoo ku qayliyey oo ku yidhi, miyaad waalan tahay? maxaad eyga u jiidanaysaa? wuu argagaxay ninkii. socodkiisii ayaanu sii watay. waxaanu eegayay wankii si uu isaga hubiyay inaanu ey ahayn. intuu eegayeyna waxaa ka soo horbaxay tuuggii afaraad, kaasoo salaamay kuna yidhi, ey qurux badan baad wadataa, kadibna iska dhaafay. halkaa waxa uu ku yaqiinsaday ninkii in aanu wadan wankiisii ee uu wato ey, waayo macquul maaha inay waxaasoo dadii isku raacaan been. kadibna xadhiggii ayuu ka furay wankii, waanu sii daayey. gurigiisii ayaanu isaga noqday si uu u soo raadsado wankiisii. xagga ay tuugtii heleen wan aanu wax tacab iyo buuq ahay ka gelin. waana sida ay saxaafaddu ku samaysay caqliyadeenna oo beentii ku celceliyaan ilaa ay u ekaato xaqiiq aan murangeli karin. haddii aad doonaysa ciwaan iiba, nagala soo xidhiidh lambarka brofaylka saaran.